السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله الصومالية دمانتين ميل كستو أجوكتان وحاد الله السلام عليكم ورحمة الله وحان ربا قال أهان إنا هالكان وقمهد عليو رق يدمر كتحان برنامج إذا يوتيوب channel كيغا إتاغيره إديركليه إنا إيغانا سيقارة وقمهد عليو سيدا دراتيت sida idinkaba iigu taxantihiin iigu xirantihiin waxa jira anigana walaalo Soomaaliyeed oo ayagana YouTube haysta in aan aniga xataa ku taxanahay oo aan ku xiranahay oo aan jeclahay barnaamijyada ay nala wadaagaan waxaan rabaa sidaa darteed maadaama idinka aad taageertiin anigana aan leeyahay YouTuber kaleeto oo aan taageero oo aan jeclahay barnaamijyadooda in aan idin la wadaago oo ila ogaatiin oo aad ila daawatiin ayagana oo aad idin ayagana subscribe aad ku qabatiin hadaynan horay ugu qabanin waxaan rabaa 7 qof ina idin la wadaago insha Allah kuwa badan oo kaleetana way jiraan in aan qaybahayga soo socoto ayagana aan ku soo qaato YouTuberka koobaad ee aan jeclahay in aad ila daawataan oo aad ila aadaan maxaan ku dhahayo channelkeeda waa walaashi aniga ila dhalatay hooyaday iyo aabahay ay dhaleen waa da'dii igu xigtay ee iga yarayd waxa la yiraahdaa Deeqa Duniya channel show ayaa la dhahaa YouTube-keeda marka insha Allah Deeqa Duniya channel show ama Deeqa Duniya hada ku qortiin wuu idin soo bixi doonaa sida daraadeed xataa hoos ayaan idin kula wadaagi doonaa inta qof ee aan soo magacaabi doono linkigooda hoos ayaan idin kula qaybsan doonaa hamoogaanina bil asxaan u taga oo soo daawada oo ka faa'iideysta oo soo maartay subscribe gareeya waxaan kow ka dhigayaa walaasha ila dhalatay Deeqa Duniya channel show Deeqa waxa weeye designer waxa weeye cunto kariye waxa weeye maxaa la yiraahdayo fitnesska iyo iscaataynta iyo jimicsiga iyaduna way taqaanaa intaasoo dhan xataa waxay samaysaa daabaca maxaan ku dhahaa bustayaasha ilmaha yaryarka ah iyo maxaan ku dhahaa kuraastana la saaran karo miiskana la saaran karo waxaas ayadana way samaysaa farshaxankaas aad bay ugu fiican tahay Deeqa Duniya channel waxay idin bari doontaa oo ay idin soo bandhigtay ee horeyna idin la qaybsatay sida ay u tasha dharka xataa iska daa wax kale waxay idin la wadaagtay irbada iyo dunta sida loo galiyo mashiinka waa ogtiin haddaan Soomaali nahay xafladaha waxaan tagnaa inteena badan ka hadlaa dad badan oo tagin way jiraan laakiin ugu yaraan bishii hal ama laba ama saddex ka badan waa tagnaa maxaa noo diiday marka inaan dharkeena intaan tolano abaayo Deeqa Duniya aan ka barano sida loo tolo dharka sida irbada loo gashto hal mashiina soo gadanaysa guriga wiiliisku oolaya diracaaga tolanaysa gorgaradaada tolanaysa macawista odaygaaga xataa tolaysa oo aad ka xishoonaysid inaad qof kale u geysatid why not soo gado u fariiso channelkeeda fiirso diyaar ba idin tahay xaqiiqdii cabaayado iyo cambuuro iyadoo tushay ayay nala wadaagtay marka sidaa darteed waxaan idin leeyahay hamoogaanina hana maaragtay seegina Deeqa Duniya dadka ku xiran waxa laga yaabaa inay isdhahaan gabadhan iyo ubaxiina ma walaalaa saan iskugu cod egnahay xaqiiqdii waa walaashay ila dhalatay hooyaday iyo aabahay ayaa dhalay waa saaxiibtayda koobaad waa qofka aan mar walba haday wax dhacaan aan iswacno aan ka sheekaysano aan xaqiiqdii waxaan nahay laba qof oo saaxiibo ah waan isku egnahay dadkana yaqaanse iskuma ekin markii la fiiriyo laakiin qofkaan aqoonin wuu soo qabanayaa isku dharar ayaan nahay balse way iga dheer tahay marka labadeenaba waa dheer nahay anyway sidaa darteed walaashay barta kaliya uma amaanayo inay walaashay tahay xaqiiqdii inaanan u amaanaynin balse Deeqa Duniya waxay intaanan aniga wax baranin ayay runtii waxyaabo badan baratay waxay baratay sida loo macnihii programmingka computerada waxay baratay dhar tulistaas waa hore waxay baratay dabaal anoon dabaal aqoonin waxay baratay sida cuntada loo kariyo anigoo cuntada iga gubanayso xaqiiqdii wax badan waxay xataa samaysay ee iskeed u baratay inay hilibka iskrida iscaatayso ما شاء الله كلجت gurigeeda ayay ku samaysaa
balse idinka idinlama wadaagi karto qof yacni maxaan ku dhahayo muslimad ah idinlama wadaagi karto laakiin dadka yaqaana way yaqaanaan halkaas haddaan uga baxo deeqa duniya waxaan rabaa inaan ku celiyo gabar kaleeto oo lambar 2 aan ka dhigo gabar kaloo walaashii ah aan ayadana ku taxanahay YouTube channelkeeda aan daawado xaqiiqdiina dad badan ay ii sheegeen ay dhahaan waan daawanaa gabadhaas waa abaayo yaasmiin oo maxaan ku dhahayo caafimaad fiican YouTube channelkeedu yahay abaayo yaasmiin waxaan u sheegayaa iyo inta taqaanaba June July waxaan aaday Kenya Nairobi Mombasa iyo Lamu balse Nairobi iyo Mombasa aanoo jooga xataa waxaa la ii sheegay in ku xiran yihiin gabdhihii marka aan la kulmay waxay ii sheegeen inay abaayo yaasmiin daawadaan runtii abaayo yaasmiin waxaan leeyahay Afrika iyo meel walba waa laga yaqaanaa iyo Soomaaliya maadaama barnaamijyo fiican oo ummadda u fiican u keentid nooc walba leh meel walba laga bartay in la igu kaasoo qabto ani farxad ayay ii tahay maalin baan oo jidka maraya gabar walaashaya oo aan aqaano ayaa jidka iga qabatay markaas igu tiri ubaxay gabar baan YouTube-ka ku arkay ma adiga waan qoslay waan ogahay inay soo wado waa anigi because way u malaysan weyday gabadhii taqaanay inay tahay gabadhan YouTube-ka ka hadlaysa waxay tiri ubaxiina adiga miyaabay tiraaday gabar aan yacni mar dhowr jeer baan shakiyay inaa adiga tahay in kale gabadhi marka waxay ii sheegtay inay ku xiran tahay ubaxiina iyo yaasmiin abaayo yaasmiin iyo ubaxiina YouTube-keeda inay ku xiran tahay ayay ii sheegtay run ahaantii in la igu kaasoo qabtay oo la yiraahday abaayo yaasmiin iyo adigaan ku daawanaa waxay ii tahay wax weyn sidaa darteed waxaan leeyahay meesha ka sii wad abaayo yaasmiin barnaamijkaaga aad bulshada Soomaaliyeed u hayso qofka saddexaad ama YouTuberka saddexaad waxaan rabaa inaan ka dhigo wiil Soomaaliyeed oo asagana ku shaqo leh arrimaha jirdhiska iyo fitnesska waxaa la yiraahdaa Hussein Fawzi ayaa waxa ugu qoran YouTube-kiisa insha Allah linkigiisa hoos ayaan idinkula wadaagi doonaa walaalahayga Soomaaliyeed wiilkaas waa wiil dadaal badan hal la ogaado ragga Soomaaliyeed hal la ogaado wiilkaas jirdhiska ayuu ka sheekeeyaa iyo cuntada wanaagsan aan u baahannahay inaan cunno wax badan ayuu wiilkaas bulshada Soomaaliyeed u qabtay waxaan la yaabay maasha Allah dadaalkiisa iyo isku dubaridkiisa iyo soo bulshada Soomaaliyeed isugu xiro soo caafimaadka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ragga Soomaaliyeed uu uga taliyo Hussein Fawzi waxaan leeyahay aboowahay qaali aad ayaad ugu mahadsan tahay dadaalkaaga xaqiiqdii ma arkin wiil kula dadaal ah inta arkay dhalinyaro marka sidaa darteed waxaan ku leeyahay Fawzi aboowe maasha Allah dadaalkaaga halka ka sii wad idinkana walaalahayga taageera aniga waxaan idinka codsanayaa inaad isagana taageertiin dhiiri gelisiin inaad subscribe siisiin abaayo deeqa duniya channel ii subscribe gareeya yaasmiin ii subscribe gareeya aboowe Fawzi Hussein Fawzi asagana please waa idin baryayaa asna la ogaada oo subscribe gareeya oo dhiiri geliya Fawzi waa wiil aad u dadaal badan xaqiiqdii waan ku amaanay asaga oo Afrika jooga ayaan maasha Allah dadaalkiisa aan la yaabay xaqiiqdii wiilkana Afrika jooga يعني مرarka qaarkood isma dhahaysan Afrika meel xun ma ahan balse inta badan qaabka uu u dhaqmaayo waa qaabka ay u dhaqmaan dadka horumaray marka sidaa daraadeed aboowe ila ogaada jirdhiska ayuu ka sheekeeyaa cuntada wanaagsan ayuu ka sheekeeyaa waxyaabo tala iyo tusaale leh ayuuna siiyaa linkigiisa hoos ayaa idinkula wadaagayaa Hussein aboowe waxaan ku leeyahay jiro joog meeshaas ka sii wada dadaalkaaga waxaan rabaa marka inaan ka dhigo YouTuberka afraad abaayaday sheekooyin badan soo gelisa waa abaayo Sahrakiin waxay leedahay maskaxdii dunida oo malaasan ayadana run ahaantii sheekooyinka ay ka sheekeynayso maasha Allah waxa ay qabata aniga xataa inaan sheekooyin aan dhaho iisoo sheega aan abaayo iska barajeeye marka sidaa daraateed abaayo waxaad sheekooyinka aad nala wadaagto run ahaantii waa sheekooyin aad u cajiib badan xaqiiqdii oo caloosha kaa soo ridaysa ku cibro qaadasho mudan waxaan leeyahay dadaalkaaga meeshaas ka sii wad intaasi inka badanba waa qabataa laakiin sheekooyinkaagaas aad baan u xiiseeyaa waan dhegaystaa abaayada shanaad waa abaayo cajiib ah maasha Allah ku kortay wadanka Jarmalka
وأبايو حقيقي وحا أي كهد ليسو عجيب أبايداس إنا دقيستين أو سبسكرايب جريسين رون أهانتي والغما مارمان وايو وحي كهد الشا تربية إلمها والد كسيدو إلمي سورا رقم لها أبايداس مقعيد هتا إدين شيغ وحالي رادا هودا أيان channel كيدا وحالي رادا بيرو وبحواناكسن markaan akhriyo beero ubax wanaagsan magacayga ayaa meesha iiga muuqata haddana sidaa darteed waxyaabaha intaas ka sii mugweyn ay ka hadasho cajiib subxaanallah maasha allah aan dhaho abaayadaydaas gabdhaha ilmaha haysta yaryarka aad u daawada caruurteena waa ubaxeenii run ahaantii hadduu aasaaska halaabana waxa waaye sida mararka qaarkood lagu toosiyo way adkaanaysaa marka meeshaan gadaal ka ordi lahayn aan gadaal wax walba ka sixi lahayn hadda intay yaryar yihiin aan saxno abaayo caruurta ayay la shaqaysaa hal cunug ayay haysataa maasha allah maalin dhexdaas waxaan arkayay barnaamij ay nala wadaagtay toyska lagu micnihii sadaqeeyay oo la siiyey ee dariskeeda iyo asxaabteeda siiyeen cajiib annaga haddaan Soomaali nahay haddaan wax isa siino waan tuuraynaa waan ka cararaynaa qofka kama maaragtay aqbalayno maadaama aan ka baqayna in la ku caayo balse Soomaali waxay ku maamaahday maqaar ay dantaada ayaa loogu seexdaa sidaa daraadeed gabadha wax aynaysana inay iyada cayda joojiso gabadha wax qaadanaysana inay shakiga iska dayso ayaan leeyahay abaayadaas channelkeeda beero ubax wanaagsan ila ogaada ila subscribe gareeya please okay abaayada kaleeto ee aan channelkeeda daawado waxaa ka mid ah abaayo la yiraahdo Safia waxay ama San Cooking ayay leedahay barnaamijkeeda YouTube-keeda San Cooking ayaa la dhahaa magaciisa abaayo Safio cunto macaan ayay karisaa run ahaantii cunto aad u macaan anigaba aan ka bartay ayay karisaa sidaa daraadeed wax caafimaadkeena u fiican ayay samaysaa abaayo soo booqda subscribe siiya taageera dhiirigeliya niyada yaan la iska dilin aad aan isku dhiirigelino aan subscribe garayno qofka kale ha ku sameeyo qof markuu wax soo bandhigo hala daawado hala dhageysto wax inaa ka faa'iidid ma ahane weligaa kuma qasaaraysid sidaa daraadeed San Cooking abaayo Safio ayadana waxaan leeyahay meesha ka sii wad bulshada hawsha wanaagsan aad u haysid gabadha lixaad markaas aan rabo in aan ama toddobaad ma mara okay aan rabo inaan idinla wadaago waa abaayo maanta aan bartay waa abaayo ila degan gobolkan aniga aan hadda deganahay maxaa la yiraahdaayo Gothenburg ayadana waxay ii sheegtay inay leedahay YouTube channel aad baan ugu farxay xaqiiqdii waxaa la yiraahdaa YouTube channelkeeda Dialy's Diary ayadana laftigeeda ila daawada abaayo insha Allah waxaan rajeynayaa inaan baran doono maadaama aan isku magaalo deganahay aan labadeenaba aan nahay YouTuber waxaan rabaa inaan ayadana barto oo aan maaragtay dadka iska aqoono run ahaantii gabar kasta oo YouTube leh gabadha kale inay taageerto waa noo muhiim abaayooyinka kale ee aan ayagana daawado way badan yihiin xaqiiqdii gabdhaha Soomaaliyeed dhammaantood waan daawadaa kuwa Afrika joogaan xataa daawadaa meel walba ay joogaan markaan arko gabar Soomaaliyeed inay tahay waan daawadaa gabdhaha make up ka marinayaan waan daawadaa dhammaan waan daawadaa balse insha Allah qaybaha soo socda ayaan ayagana ku soo qaadan doonaa laakiin intaan waa inta aan aqaano ee aan isku xirannahay ee aan maaragtay aan ilaa hadda aan subscribe gareeyay marka insha Allah taala aan istaageerno haddaan nahay yaan lala yaabin oo dadka qaaraba waxay necab yihiin qof luluqad ah oo isku af iyo isku diin iyo isku dhaqan yihiin in uu dhaqdhaqaaqo madaxa kor u soo qaado wayba necab yihiinba waxaa la leeyahay way soo waasheen lama waalanin adaa wax lagu sheegayaa teeda kaleeto adiga haddaadan rabin in wax lagu sheego ama lagula wadaago wixii markaas annaga aan naqaano dad badan oo ku faraxsan ayaa jira marka selfish ha noqonin naftaada kaliya ha ka soo qaadin turjubaan ha u noqonin dadka kaleeto waxaadan rabin ma rabtid banaanka mar haddaa rabtidna noqo daawade xushmad leh oo dadka kaleeto xushmeeya ku xushmeeya aragtidooda iyo fikradooda iyo tacliintooda marka waxaan idin leeyahay walaalaha igu xiran dhammaan intaas qof oo ayagana YouTuber ila ah Soomaali ila ah wiilal iyo gabdho isugu jiro ayagana ila ogaada
daawada dhiirigeliya wax badan oo aan naqaano waxaa jirto aan soo bandhigi doono insha allah idinka laftigiina xataa haddaad samaysataan na soo wargeliya waan idinku taxnaanaynaa waan idinku xiranaynaaye asalaamu calaykum waraxmatullah